ganacsiga Soomaalida ee magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ayaa dib u soo laabtay kadib xirnaashihii iyo bandowgii ay dowladda dalkaasi ay ku soo rogtay dalka Turkiga taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga Soomaalida ay ku lahaayeen wadankaasi. COVID-19 saameynta uu ku reebay ganacsiga weli waxa ay ka muuqataa xafiisyada ganacsiga, makhaayadaha iyo goobaha alaabaha laga raro kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu shaqeystaan. waxyaalo badan baa isxiray markii hore oo dhammaan wadankii hadii ay noqoto ardayda imaarisay hadii ay noqoto jaamacadii qoray jaamacadii labtarkoodii educationkii face to face ka ahayd waa laga bedelay online education baa loo bedelay waxyaalahaas oo dhan ardayda challenge ay qabsaday bay ahaayeen iyo guud ahaan xafiiska haatan laakiin sidoo loo qaaday lockdown-ka Turkiga uu dhamaaday koronihina xoogaa uu hoos u dhac sameeyay dhammaan shaqooyinka xafiiska dib ay u bilowdeen jaamacadaha wadanka Turkiga private iyo dawlad dhammaantoodna dib ay u bilowdeen waxaan ugu bishaareynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda waxbarashada jecel inay Turkiga u yimaadaan sanad dugsiyeedkan. Saameynta COVID-19 imika waxa bilaabmatay Turkiga inuu ka yaraanayo xanuunku shaqooyinka iyo ganacsiga iyo dhanna uu dib u wada furmayo marka waxaan leenahay dhammaan dadka Soomaalida ee ku nool dadka Turkiga inagoo waxa weeyaan taxadir badan sameynana inagoo sameynana ilaalo badan sameynana maskiga afka xidhanana waxa weeyaan is ilaalinano farihiina markasta dhaqana meelaha ganacsiyada goobaha ganacsiyada inaynu imano. sidoo kale waxaan ka caawinaa ummadda Soomaaliyeed dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada oo la geynayo dadka iyo waxaan ku raahday bukaanka ama ardayda meel ku haboon oo waxa weeye tayadooda leh inta markaan ka soo gudbo dhinaca intii hadda 3 bilood la soo dhaafay ama 4 bilood soo dhaafay waxa dunida hareeyay xanuunkan corona ah kaasoo waxa weeyaan dhammaan adduunyada oo dhan hakiyay ganacsigii iyo habkii ay waxa weeyaan ganacsiyada u shaqeynayeen oo waxa weeyaan itmuudka ahaa xanuunka kadib waxa weeyaan badeecadii iyo ganacsiyadii isdhaafsiga ahaa waliba wadamada ay isku kala bedelanayeen weeyaraha kaday waxa shirkadu inta kadib ay qaaday raadada ay waxa weeyaan ku sii socodsiinayso ganacsiga iyo badeecadii muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen mid ah maamulayaasha shirkadda Somali Transport Service Center shirkadda Somali Transport Service Center waxay qabataa waxa ugu weyn ay qabataa kamid ah kaargooyada waxbarashada iqaamooyinka iyo ganacsiga xagga ganacsiga yani kaargooga corona saameynta nagu yeesho waxa kamid ah horta xagga wax dirista alaabta dadka adeega yar yar soo dirsanayeen oo diyaaradaha ay u qaadi jireen taas oo saameynta ugu weyn nagu yeeshay taas kamid ah laakiin kuwii kaargooyaashii markabka alaabta u qaadi jiray waa wadna way noo sii socotay taas saameyntaas nagu yeesha dhigi karnaa. Gudoomiyaha ururka ganacsatada magaalada Istanbul oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in haatan wax walba ay caadi ku soo noqonayaan. xanuunkan faafa loo yaqaano COVID-19 xanuunkaasi runtii haddaan ka hadlo ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga degan oo aan mas'uul ka ahay runtii saameyn weyn ku yeeshay saameynta koowaad ku yeeshay waxa noqotay in isu socodkii gobolada la xidhay isla markaana in la xidhay in la isku yimaado oo xafiisyadii la furo muddo 3 bilood ah waxa xidhnaa dhammaan xafiisyada hoteelada maartay kulli maartay meelaha la isku yimaado kulligood oo xidhnaayeen runtii saameyn aad u weyn ayay ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee Istanbul iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga ku nool sidoo kale waxa isku xidhmay ganacsatadii ka iman jirtay dalkii ee halkan alaabooyin ka qaadi jirtay dalkeenii hooyo geyn jirtay iyaguna runtii saameyn ku yeesheen waxa jirtay qolooyin ganacsatada iyaguna halkan joogay oo ku adkaatay inay dalka iyaguna ku noqdaan iyaguna saameyn ku yeeshay runtii waxa weeyaan talaabo fiican baan inta qaadanay inaan la socono ganacsatada xanibaadaha iyo dhibaatooyinka saaran. Magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ayaa waxa ku ganacsada ganacsato Soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaas oo waxyaabo kala duwan ku iibiya wadankaasi waxaana markaasi ay qayb ka hayeen dadyowga uu saameyntu ku yeeshay cudurka COVID-19 oo awgii loo xayiray meelo badan oo caalamka kamid ah. Maxamed Idil Raadiyaha iyo telefishinka Dalsan magaalada Muqdisho.